gudoomiyaha madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka Soomaaliland Mujaahid Xasan Guure jaamac oo hoon Cable TV xog wareysi gaar ah ku siiyay hotel dalxiis magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii horeysay ka dhawaajiyay in ay xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland ka dalbanayaan sidii uu dalka ugu qaban lahaa shir weyne qaran waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha madasha wada tashiga Xasan Guure jaamac oo hadalkaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan u baahanahay oday intuu isugu keen yeedho dadka isugu wada yeedho isagu hogaamiya shir weyne qaran qabta mashaakilka dalka yaalla war sideen dawladnimada inoo deeqaysa maxaynu ku heshinaa halkaynu maraynaa inuu isbeddelama u baahnay madaxweynuhu maanta taa haddii uu sameeyo taariikhda baal weyn buu ku qormaya wada nimaadna kol haddaynu saddexdii dhinacba maanta soo dhow yihiin odayga cali khaliifin oo soo socdo madal ballaaran baynu baahnay ku hadalno hadday taasi dhici weydo Soomaaliya dib u kala tagay dadka kalena mar hoon Cable TV uu weydiiyay bal sida uu u arko aaskii dhawaan loogu sameeyay magaalada Muqdisho Generaal Maxamed Cali Samatar oo hadallo badan laga jeediyay waxa uu yidhi waxaanu ka hadlaynaa wasiir iyo xil baan ka hadlayaa markaan ka hadlay Cali Samatar ma aha qof Cali Samatar iyo qofnimadiisa ma aha wax ka hadlaya xilkaasi wuxuu ahaa xilkii Hargeysa qirtay inuu isagu amarka bixiyo ninka aabihii iyo saddexdu walaalo ahaayeen isagoo ilmo yar laga dul qaaday ee dariiqa lagu toogtay sidii ku maqan marka cali Samatar calanka loogu duubo calanka Soomaaliyeed muxuu ku doonaa Soomaalinimada muxuu ku doonaa marka yani dib taa dhacday baritan ma tiyo kala aan sameeyay kaaleba aadan abdi ciidlahoon Cable TV Hargeysa.